Soo dhawaada saaxiibayaal, waa mar kale iyo Somali Med. Maanta waxaan doonayaa in la wadaago cashar hordhaca oo ku saabsan cudurrada dhimirka. Intaanan u gudbin qodobada casharkeena ku saabsan yahay, waxaan rabaa inaan idinla wadaago daraaso muujinaysa ama research iyo baaritaan cilmi baaris la sameeyey oo muujinaysa yani Maraykan baa lagu sameeyey. Marka waxay muujinaysaa boqolkiiba 13 ka mida da'yarta Maraykan ee da'doodu u dhaxayso 8 ilaa 15 in ay la nool yihiin cudurrada dhimirka. Waxay muujinayaan sidoo kale boqolkiiba 50 ka mida ciyaalka da'doodu u dhaxayso 8 ilaa 15 inaanay helin wax daryeel caafimaad inaanay helin. Sababtuna waxa weeyaan inaan la ogeynba hadday waalid tahay, hadday goob caafimaad tahay ama shaqaale caafimaadka iyo hadday tahay goobihi waxbarashada midna, maadaama ay yihiin cudurrada dhimirka cudurro aan la taaban karin ama yani cudurrada jidhka ku dhaca aanay ahayn. Yani organic diseases ma aha, waa cudurro qofka dhimirkiisa la nool oo mararka qaarkood iska daa inay dadku gartaan xataa qofka isagu aan ogeyn cudurka ayaa wuxuu yahay ama aan garanayn inuu xanuunsan yahay in kale. Daraasaddu waxay sidoo kale tilmaantay boqolkiiba 13 ilaa 20 dhammaan ciyaalka guud ee ku nool waddanka Maraykanka. Halkan waxay ahayd 8 ilaa 15, laakiin halkan waa dhammaan ciyaalka guud weeyaan. Da' ma leh markan, yani waa 18 ama 20 iyo wixii ka yar in boqolkiiba 20 ay la nool yihiin xanuunada iyaguna. Waxay iyaduna daraasaddu tilmaantay in boqolkiiba 17 ardayda dugsiyada sare dhigta ee waddanka Maraykanka ay ka jecel yihiin nolosha inay dhintaan. Yani inay dhintaan ayay ka jecel yihiin inay noolaadaan nolosha hadday ku jiraan. Sababtu waxa weeyaan yani inay la nool yihiin xanuuno dhimir ah. Waxyaalaha cajaa'ib kale waxa weeyaan in dhalinyaradan dugsiyada sare dhigta ee boqolkiiba 17 doonaya inay dhintaan, waxay iyagu doonayaan in isdilaan. Ma doonayaan in si kale loo dilo iyo inay iyagu dhibaato kala galaan iyo waxa, laakiin waxay doonayaan inay iyagu dhintaan, inay iyagu isdilaan. Boqolkiiba 50 halkan waxay muujinaysaa daraasadda boqolkiiba 50 cudurradaas inta badan inay dadka ku bilaabmaan da'da 14, laakiin boqolkiiba 75 runtii 14 ilaa 24 ayay ku dhacaan. Macnaheedu ma aha in cudurradaasi mar hadda 24 dhaaftid ama 14 ka yar tahay inaanay ku haleelayn. Yani xanuunka waa loo siman yahay rag iyo dumar, waa loo siman yahay yani xanuunadan dhimirka rag iyo dumar waa loo siman yahay. Waxaa kaloo loo siman yahay ciyaal, qof weyn iyo qof yar. Laakiin da'da boqolkiiba 75 cudurkaas wuxuu ku dhacaa inta qofku aanu 26 gaarin. Marka 26 yani dhallinyarnimaduu kugu haleelaya. 25 ka soo harayna wixii intaa ka weyn ayuu ku dhacaa dadka. Waa hagaag. Haddaba haddaan fiirino qodobada casharka ee maanta, waa maxay cudurrada dhimirku mental disorders, maxaa looga jeedaa? Waa qodobkeena koowaad. Qodobka labaad aan kusoo qaadan doono casharkeena waxaa kamid ah noocyada xanuunada dhimirka, waxa sababa cudurrada dhimirka, astaamaha cudurrada dhimirka lagu garto iyo sida loo daweeyo cudurrada dhimirka. Dhammaan 5 qodob waxaan ku faaqidi doonaa ama kaga hadli doonaa casharkan kooban ee hordhaca u ah. Mid uma dul istaagi doona cudurrada, laakiin waxaan ka sheekeyn doonaa, yani waxaan si hordhaca guud u dulmari doonaa cudurradaasi waxay yihiin. Waa maxay haddaba xanuunada dhimirku? Xanuunada dhimirku ama cudurrada dhimirka ku dhacayo waa xaalado qofka la soo gudboonaada oo si taban u saameeya fikirkaaga, dareenkaaga. Yani waxay saameynayaan dareenkaagii, fikirkaagii, niyadaadii iyo habdhaqankaagii qofeed. Yani markaan leenahay dareenkaagii bay saameynayaan, yani waa niyadaadii, yani waxaad dareemi jirtay, waxa wanaag iyo xasiloonida ku dareemaysay oo laga yaabo inaa maanta aadan xasilooni ku dareemayn. Waxaad jeclaan jirtay ood maanta neceb tahay, waxaad necbaan jirtay ood maanta jeceshahay. Fikirkaagii oo khalkhal ku jiro, waxaad doonayso iyo waxaad yani diidan tahay aan la kala sixi karayn. Niyadaadii oo mararka qaarkood iska faraxsan tahay, mararka qaarkood iska niyad jabsan tahay, mararka qaarkood farxad iyo niyad jab maahana wax kale aadan u dhaxayn. Laga yaabo adigoo hadda ilmeynaya inaad haddana qoslayso. Iyo habdhaqankaaga qofeed oo dadku waxay kugu yaqaaneen iyo habdhaqankii suubanaa iyo wixii oo dhan ay si kale yihiin. Inaad iska seexato iyadoon dadku seexasho, yani aan waqti xilli hurdo ahayn. Inaad iska soo jeedo iyadoon xilli soo jeed ahayn. In yani iyagoo dadku wax baranayaan yani aadan waxbarasho aadayn. Laga yaabo inaad ugu firfircoonay dadka wax baranayay markii hore. Yani habdhaqankaagii isbedela, cuntooyinkaagii hanaanka wax u cuni jirtay oo kale, tusaale ahaan cuntada iska daldasho ama haddaad iska soomisid
waxaas dhan waa astaamo ka mid ah astaamaha lagu garto xanuunada dhimirka. Laakiin hadda astaamaha kama hadlayno, waxaan ka hadlaynaa yani qeexitaanka. Yani waxaan ku qeexnay waa xanuun ama xaalado qofku la soo gudboonaada oo yani si taban kuu saameynaya, si negative ah, yani fikirkaagii, dareenkaagii, niyadaadii, habdhaqankaagii, shakhsiyadaadii, yani adigoo dhan ku bedelaya weeyaan. Laakiin nasiib darro dadku ma dareemi karaan. Xataa adiga ayay kugu adagtahay inaad dareentid in aad la nooshahay xanuun saameeyey dhimirkaaga. Haddaan eegno noocyada xanuunada dhimirka, xanuunada dhimirku way fara badan yihiin dhab ahaan, laakiin kuwa ugu badan inta badan yani laga hadlo ama dhakhaatiirtu aad ogala tacaalaan dadka waxaa ka mid ah xanuunada welwelka ama xanuunada werwerka oo lagu yiraahdo magac ahaan yani luqadda ingiriisiga anxiety disorders. waxaa ka mid ah isaguna xanuunka argagaxa ama panic disorder. waxaa ka mid ah xanuunka waswaaska obsessive compulsive disorder loo yaqaan. panic disorderku waa xanuun ama xanuunka yani qodobka labaad hadda ku jira argagaxu runtii waa xanuun aad u dhib badan oo yani qofku uu dareemayo, yani waa cabsi xoogan oo soo noqnoqoto uu qofku dareemayo cidhiiri iyo diiqad laabta ah iyo in yani mararka qaarkood ka baqayso in neeftuba kugu dhegto. waa xanuun aad u dhib badan, aad u cabsi badan runtii. xanuunka argagaxa ayaa la yirahdaa ama argagaxa. waxaa ka mid ah xanuunada waswaaska oo iyaduna yani ah xanuun ka mid ah xanuunada dhimirka. tusaale ahaan yani xanuunkan waxa weeyaan waa xanuun qofku hawl uu dhammaystiray uu maanta o dhan isaga daba noqnoqonayo. tusaale ahaan gurigaad ka baxday ama shaqada aaday ama dukaanka wax kasoo qabsanaysa ama safar muxuun, haddana waxaa isla markiiba aaminaysa inaad guriga soo xidhin. waxaa ku khasbananaysaa markaa maadaama waxaan xanuun yahay, waxaa ku khasbantahay inaad guriga ku noqotid. qofku wuxuu ku khasbaya xanuunkani inuu guriga ku noqdo uu soo xidho. hadduu soo xidho hubiyo wuxuu isku dayayaa bal inuu kor iyo hoosba ka wada xidhaya in kale haddana mar labaad soo eego. haddii labadaaba soo xaqiijiyo guriga dib u furo wuxuu eegay wuxuu haddana isleeyahay waad soo xirtay guriga waa dhab, laakiin de amaadan leerarkii soo baktiin, marka dabkii haddana amaadan soo baktin. maanta oo dhan wuxuu isaga daba kalaabanaya gurigii. mararka qaarkood waxaa dhacda yani in qofku gacmihiisa maanta o dhan dhaqayo leeyahay maya si fiican umaadan nadiifin, waa kan si fiican umaadan weysaysan, si fiican isumaadan maydhin. maanta oo dhan yani iska daba ka wareegayo hawl uu mar hore qabtay. waa xanuunka waswaaska. waxaa jira isaguna xanuun la yirahdo xanuunka rajabeelka ama depression. soomaalida qaarkeed khaasatan dhakhaatiirtu yani waxay ku magacaabaan iyo dadka meelaha ka turjumaanada markii galbeedka la joogo. laga yaaba marka wadanka la joogana yani in dhakhaatiirtu ay isticmaasho depression ereyga ah oo ah luuqad kale, ama ay isticmaalaan niyad jab. laakiin aniga waxa igala habboon rajabeel, yani cudurka rajabeelka. waayo qofka rajadiisii iyo hankiisii waxaas dhan buu dhibaato ku sameeyaa. niyad jabku inta badan wuxuu ku kooban yahay wax marka shaqa aad qaban kari weyday ama aad gaari kari weyday ood ka niyad jabto iska dayso, laakiin dee aan saameyn ku lahayn heerarka kala duwanaya noloshaada. yani waxaa maanta markaa ka niyad jabto oo kale wax kala qaban kartaa. tusaale ahaan wax specific ama wax khaasa baa ka niyad jabi kartaa. tusaale ahaan waxaa laga yaabaa macallin baa wax ku baraya, macallinkii baa ka niyad jabi kartaa waxbarashadiisa oo kale. tusaale ahaan waxaa aadi kartaa macallin kale. laakiin rajabeelku adigaaban mustaqbalkii oo dhan waxa kaa saaran madow iyo caad aadan dhaafi karayn. marka aniga depression ayaa waxa yani igala wanaagsan ereyga niyad jabka in depression lagu fasiro in la yirahdo rajabeel, haddii aanay jirin erey bixin caadiya oo dowladdu samaysay tusaale ahaan ama hay-adaha kala duwan ee soomaalida qusayso hadday jiraan. cudurka depression rajabeelka ayaa isaguna ka mid ah runtii cudurada maxaa la yirahdaa dhimirka. waxaa ka mid ah xanuunka laba gardayga. waan ka cudur daaranayaa xanuunka laba gardayga anigu yani soomaali ahaan meelna kama arag, aniga laakiin ku fasiray bipolar disorder baa la yirahdaa afka qalaad. bi macnaheedu waxa weeyaan waa labo, polarna waa laba jiho ama laba gar buu qofkaasi leeyahay ama laba jiho. marka disorderna waa xanuun marka la isku daro waa xanuunka labada jiho. marka anu af Soomaali waxaan ka dhigay xanuunka laba gardayga. macnaheedu ma inaan anagu erey bixinta samaynayo Soomaaliga, laakiin waa erey aan isleeyahay ugu yaraan dadka wax u soo tabinaysid way fahmi karayaan hadday af Soomaaliga yaqaanaan, oo way uga fududahay in bipolar disorder la isticmaalo. waxaan isku dayayaa yani inaan yani ereygan Soomaali ku heli karo xataa haddaan erey bixin dhab ah helin,
yani wax u dhow inaan isticmaali karo si dadka Soomaalida aan wax usoo tabinayo ay uga faa'iidaystaan oo wuxuun yani mataqaanaa faa'iida ay keenaan. Waayo wixii hadaadan fahmin dee way yara adkaanaysaa in qofku yani wax ka fahmo ama ka barto. Waxaa ka mid ah xanuunada ku dhaca niyadda ama mood disorders. Haddaan wax yar ka idhaahdo xanuunka labagardayga. Xanuunka labagardaygu maxaa laba jihare loogu bixiyey ama xanuunka labagardayga loogu bixiyey? Waxaa loogu bixiyey waa xanuun qofku u dhexeeya farxad zaa'id ah iyo murugo xad dhaaf ah. Yani qofku aad buu u farxayaa isagiyo farxad la qoslaya ayuu ooyaya. Haddana oohin baa soo dhex gelaysa ama isagiyo ooyaya oo leh aniga laima jecla, laima fahmayo, dadkani lama socdaan, waxa igu dhacay lama oga, waa ka buu haddana qoslaya. Marka waa xanuun dhimirka saameeya oo halistiisa leh runtii oo yani haddaan qofka lagala tacaalin oo yani qofku u dhaxaynayo niyad jab zaa'id ah ilaa qofku isxakamayn kari waayo iyo farxad waali ah oo sidoo kale aanu qofku isaguna isxakamayn karayn. Waxaa ka mid ah xanuunada niyadda. Xanuunada niyadda oo yani qofka niyaddiisii inay isbedelaan maanta oo dhan maruu faraxsan yahay, maruu niyad jabsan yahay, maruu wuxuu isaga jiraa isagoo dhan mood buu isaga jiraa. Lama garanayo wuxuu doonayo, wuxuu jecel yahay, wuxuu neceb yani qofka niyaddiisii oo dhan niyad la saadaalin kara maaha. Niyad la saadaalin kara maaha. Taasna waxay inta badan sababtaa in qofku ka dhex baxo bulshadii uu isfaquuqo uu meelo kale tago maadaama aanay isfahmin dadkan. Waxaa ka mid ah xanuunada iyaguna cunno xumaanta oo eating disorders loo yaqaan. Xanuunada cunno xumaanta waxa weeyaan qofku inuu cunto isku daldalo ama cunto iska badiyo. Mararka qaarkood hadduu doono yani iska soo matajiyo ama intuu suuliga galo ama isagoon la ogeyn yani meel gaara ku gabado uu issoo matajiyo ama gacan ha isticmaalo ama caday ha isticmaalo ama wax kale oo cuntadii bannaanka keeno. Hadhow markuu cunayana wuxuu ku khasban yahay inuu aad u cuno, marka kalena wuxuu ku khasban yahay inuu iska soo saaro cuntadii. Waa xanuun halistiisa leh runtii oo marka laga tago xataa inuu xanuun dhimir yahay loola tacaalo yani waa xanuun sababi kara xataa dhaawacyo calooshiisa soo gaara iyo maxaa la yirahdaa yani matagan qofka iska soo matajinaya acidka caloosha dhan uu yani kor u soo qaadayo hungurigiisa soo marayso yani waxay sababi kartaa in ay yani xanuuno kale uu ka qaado. Inta badan dadku lama socdaan. Dadku waxaasoo dhan waxaa laga yaabaa iyagoo guriga kula nool, dhalinyaro xanuunadan la nool inaanad adigu ogeyn, iyaguna xataa waalidkood baan ogaan karin. Iyaguna hadday og yihiin xataa ma jecla inay dadka la wadaagaan. Sidaa awgeed waxaa laga yaabaa 10 sano, 15 sano ka badan inay kula noolaadaan iyagoo xanuunkan la nool. Marka waa xanuun halistiisa leh. Maandooriyayaashay bilaabaan. Waxaasna waan arki doonaa astaamaha lagu garto. Waxaa ka mid ah xanuunada cunno xumada xanuun isaguna yani qofku inuu cuntada iska soomiyo isagoo cugdad ka qabo inuu ama cayilo ama wax kale ama maxaa la yirahdaa inuu dareensan yahay inuu dadka ka cunto badan yahay. Sidaa awgeed maalinkii oo dhan uu mar qura wax cuno. Mar inuu cuno ama aan waxba cuninba mararka qaarkood. Waa xanuuno yani runtii dhimirka ah. Waxaa ka mid ah xanuunada dhimirka ku dhaca xanuunada shakhsiyaadka qofka ama personality disorders oo habdhaqanka qofku isbedelo. Waxaa ka mid ah yani habdhaqanka qofku markuu isbedelo waxaa ka mid ah tusaale ahaan qofku inuu iska xanaaqsan yahay, wuxuu ka xanaaqsan yahay aanay jirin, inuu iska welwelsan yahay, wuxuu ka welwelsan yahay aan la garanayn, dadku la welwelsan yahay. Dadka ugu jeclaa ugu dhawaa isugu dhawaayeen waxaanay qabin ayuu keligii la nool yahay. Marka isbedel caadi ah shakhsi ku yimi waana xanuuno la xiriira xanuunada dhimirka runtii. Waxaa jira tiiraanyo maskaxeed xanuun la yiraahdo oo ama post traumatic disorder stress disorder loo yaqaan. Post traumatic stress disorder waa xanuun maskaxda inta badan laga qaado dhibaato halis badan oo kula soo gudboonaatay khaasatan carruurnimadaada sida in lagu jir dilay ama jir dil haddaan ahayn in yani gabar hadday tahay la kufsaday oo kale iyo wiilba yani in dhaqan xumo lagula dhaqmay yani xadgudub ka dhan ah insaaniyadda iyo dadnimada iyo dareenka saxda ah intaba. Tacadiyo loo geystay qofka isagoo xataa weyn way kusoo noqdaan. Sidaas aan u niri tiiraanyo maskaxeed. Yani waa tiiraanyo maskaxiyan buu qofku waxaan u diiwaan geliyey. Dhibaatada noocaana way ku diiwaan gashan tahay maskaxdiisa way ku daabacan tahay. Laakiin hadhow
markuu weynaado ayay waxay ku noqotaa xanuun jirkiisa ku kaydsanaa oo yani kusoo kacdaa. Kadibna waxa laga yaaba qofka inuu ama yani aad ka aragto yani wax dabeecada aanu lahayn, dhaqama aanu lahayn, aan awal lahaan jirin, oo taban de aan wanaagsanayn. Xanuunada kale oo kamid ka ah xanuunada ku dhaca dhimirka waxaa kamid ah xanuunada ruuxiga ah ama psychotic disorder sida schizophrenia oo ah yani qofku inuu caalam kale la nool yahay isagoo inala jooga. Waxaa kamid ah cabsida taban, waa xanuuno fara badan oo la yirahdo cabsida taban. Waxaa kamid ah xanuunada cabsida taban yani cabsida meelaha zaxmada, cabsida yani qofku inuu ka cabsado meel hadii gawaarida iyo dadka ay ku badan yihiin inuu ama ku caburayo ama controlku ka lumayo uusan isxakameyn karayn, ama xanuunada tusaale ahaan uu ku dareemayo meelaha ciriiriga inuusan geli karin, tusaale ahaan inuu wiish raaco ama qolka dusha looga xiro guriga oo kale tusaale ahaan keligii isagoo jooga waxa laga yaaba qol inuu ku jiro aan ogoleyn in la xiro qolka, isagoo xataa waxaa laga yaabaa salaad ku jira haddaa qolka dusha ka xirta ama gabadha iyadoo salaad ku jirta haddaa guriga ka xirta inay ama qayliso ama kusoo ordo albaabkii oo kale. Waa phobia la yirahdaa, waa cabsi, cabsida taban baan ugu magac darnay. Sababta aan cabsida taban u leenahay waxa weeyaan dee qofka bini'aadamka inuu cabsado waa qayb kamid ah difaaca jirkiisa iyo inuu khataraha ka badbaado waa wax normal ah, waa mechanism iyo farsamo jirku si rabbaaniya loogu abuuray oo ah inuu khataraha iyo halista uga fogaado. Inuu cabsado waa sax, laakiin wax aan dhibaato lahayn inaad ka cabsatid waa cabsi taban wey, yani waa phobia. Marka waxaa kamid ah cabsida tusaale qofku inuu markuu fooq fuulo oo kale meelo mataqaana dabaqyada dhaadheer oo kale ama buuraha ama waxa inuu cabsanayo, biyaha jira cabsida biyaha, cabsida waxaa jirta aragtida dhiigga, cabsida waxaa jirta qof markuu dhiig arko ama xoolo la bireeyay ama qof yani la mudayo oo kale irbad iyo wax saas dhiig laga qaadayo. Cabsida waxaa jirta caarada ama caarada sida dadka qaarkood u yaqaanaan yani inuu ka cabsado. Waxaa jirta cabsida duulimaadyada iyo diyaaradaha, waxaa jirta cabsida safarada, way fara badan yihiin. Marka waxaasna waa xanuun la xiriira qofka dhimirkiisa oo u baahan runtii in lala tacaalo. Haddaan intaan uga gudbo noocyada xanuunada dhimirka, waxaan u gudbaynaa waxa sababa cudurrada dhimirka. Maxaa sababa? Cudurrada dhimirka yani la iskuma waafaqsana wax dhab ah oo kulligood ay kasoo wada farcmaan, waayo ma jirto. Laakiin waxaa la ogyahay yani maadaama cudurro fara badan yihiin annaguna waxaan ka hadlaynaa uu hordhac yahay, yani waxaan yani ka hadli doonaa yani sababaha ugu faraha badan ee dadka ku keena xanuunada, iyadoo xanuun walba loo eegayo si gaar ah hadhow marka dhakhtarku tusaale ahaan xanuunkaa qabtid uu si gaar ah u raadinayo marka uu ogaanayo waxa sababay. Haddana waxay inta badan ka siman yihiin yani ama waxaan soo qaadanaynaa yani mataqaana qodobada ugu muhiimsan yani sababa cudurrada dhimirka. Waxaa kamid ah tusaale ahaan fir iyo hidaraac, yani inaad firsanaysid oo waalidkaaga oo kale ama xagga hooyo ama xagga aabe inaad ka firsanaysid dad xanuunada noocaas lahaa, oo macnaheedu yahay in yani DNA-gaaga uu ku diiwaan gashan yahay gene ama hidde-side ama hidaraac ayaad u leedahay. Tusaale ahaan xanuunadaas kale marka hadii la ogyahay already in dadkaagu qabi jireen oo kale tusaale ahaan way u sahlanaanaysaa xataa dhakhtarka inuu kaa daweeyo, waayo waxaa laga yaabaa iyaga in laga daweeyo ama iyaga in la ogaaday kadibna lagala tacaalay, marka way sahlan tahay in adigana lagala tacaalo. Iyaga hadii la ogaaday xataa in la ogyahay xanuunkaa ku dhacay, yani adiga qudhaada way ka sahlan tahay inaad fahantid yani dhibaatada ku haysata iyo waxan iyo xanuunkan noocuu yahay. Waxaa laga yaabaa inaadan yani ku jahwareerin sida 99% dadka hadda maanta jooga la nool xanuunada aanay u ogeyn inuu yahay xanuun jira. Waa sabab marka keeni karta xanuunka waa firsan kartaa, haddaan soo gaabiyo waa xanuun qofku uu firsan karo ama hidde ahaan u heli karo sida yani mataqaanaa yani hidayaasha wanaagsan ba tusaale ahaan uga dhaxli karta waalidka sida dabeecadda wanaagsan, maxaa la dhahaa midabka, sida waalidka uga dhaxli kartid waxaa la yiraahdo dhaqanka wanaagsan, dulqaadka, waxbarashada tusaale ahaan ayaad waxaad u dhaxli kartaa hidde-sidayaasha taban oo kale oo dee waalidku hadduu xanuuna lahaayo oo kale xanuunadaasna adiguna waa ka qaadi kartaa, inkastoo loo eego yani haddana percentage iyo waxyaala noocaas iyo meesha ay ku jiraan hiddaha noocuu yahay waxa.
sorry iga raali hada waxaa ka mida waxyaalaha sababa xanuudan waayaha nolosha qofka biniaadamka yani inuu dhibaato kala soo kulma yani sida tusaale ahaan in adigoo yar hooyada iyo aabaha isfureen oo kale qoyskii burburo yani waalidka ay kala tagaan ama mid kamida uu dhinto inaad dad aad jeclayd ay shil ku dhintaan oo kale ama naxdin si yani lagugu soo sheego arrin naxdin badan waxaasoo dhan wayna sababi karaan haddii hidda a ulahaydna iyagoon mataqana iyagoo aan sababta kuwaad ahayn ayay kugu kicin karaan way kicin karaan yani ayagaa istaari karaa macalinkaagii oo tusaalahaan dhintay ama arday isku fasal ahaydeen ama isku malcamo dhiganayseen ama isku dugsi dhiganayseen sida dugsiga sare oo kale dugsiga hoose oo kale arday istaqaaneen oo kale tusaalahaan shil galay ama dhibaato ku dhacday ama waxa qof yacni noloshaada saameyn ku lahaa dadka kugu dhow ahaa oo dhibaata soo garto lagu sheegay falcelin ay maskaxdaada ka falcelisay ayaa waxay sababi kartaa inay maskaxdaadu gunuto ama ay guntin samayso ay halkaa ku gunudo in xanuunka aad ka qaado ama ay kuu kiciso mid hidda lahaa oo iska hurday oo aadan ogeyn waxaa sababi kara cunsuro biology ayaa iyaguna sababi kara runtii yani xanuunka cunsuro biology maxaa ujeeda cunsuro biology waxaa ujeeda tusaale ahaan hormonada caadiga ama dhambaalada dareenwadayaasha qofka biniaadamka ee maskaxda tusaale ahaan iyo neerbayaasha in waa hormono inta badan iyo brotiino marka hormonadaas neurotransmitters waa loo yaqaanaa yani inay isu dheelitirmin haddii mid kamida tusaale ahaan uu ka bato kan kale inta badan way isu dheelitiran yahin qofka markuu caafimaad qabo lakin mid kamida hadduu ka bato kan kale dee hadhow wuxuu la soo baxayaa sawirkii kaasu shaqaduu hayay inay ka badato in kale oo tusaale ahaan hadduu kaasoo farxadda ku saabsanaa hormoonkaas dee hadhow farxaddaada iska badanaysa farxad zaa'id ah oo yani mataqaanaa waali ah baa ku jiraysa haddii kan kugu batay uu yahay kan murugada iyo waalida yani waxa laga yaaba inaad murugo iyo mataqaanaa xaalad kale aad geshid marka cunsuro biology waxaan uga jeedaa yani in wuxuu jirku isagu samaysan jiray ay isu dheelitirmi waayaan ama ay kala dhantaalmaan oo ama ay bataan ama ay yaraadaan ama ay isdaba maraan taa waxaa sababi kara marka dhibaatooyin maskaxda soo gaara ama waxaa sababi kara waxa la yiraahdo tusaale ahaan in adigu maandooriya isticmaashid maandooriya isticmaasha ama qaadkoo kale khamrigoo kale xashiishkoo kale waxyaalaha noocaasoo kale baa isticmaasha ama kiniino dhakhtar ku siiyey oo kale ama adigu hadda soomaaliya oo kale tusaale ahaan farmasi inta iska tagtid kasoo gadatid kiniino oo aad isticmaasho in aan loogu tagayn qofka biniaadamka inuu mar wada qaato inaad iska isticmaasho adigoo nafis ku dareemaya kadibna aad ka dhaxashid yani mataqaanaa in cunsuradii caadiga ahaa biologiga ahaa ee jirka uu sameynaya hormonadii jirka uu sameynaya brotiinadii inay isu dheelitirmi waayaan kadibna qofku sidaa ay u sababto in uu galo marxalad dhimir ah waxaa kamid a tusaale ahaan dhaawacyadoo kale in dhaawac soo gaara maskaxdaada ama yani mataqaanaa qaybo jirkaaga kamid a waxaa laga yaabaa tusaale ahaan haddaan tusaale isku dayo inaan bixiyo in adiga oo shil baa gashay ama maxaa la yidhahdaa shilkii markaa gashay ba hadha waxaa kusoo indha kala qaaday waa suuxday meel emergency aa lagu geeyey isbitaal baa lagu geeyey isbitaalka markii lagu geeyey dhakhtarka go-aanka iskale waayo adigii malihid yani mataqaanaa waxba laguma weydiin karo ama haddii la doono dadkii waalidka iyo walaalada iyo wixii marka mas-uuliyaddaada xaqa u lahaa ama dowladoo kale tusaale ahaan ayaa go-aansatay in lagula ama dhakhtarka badde ayaa go-aansaday in yani tusaale ahaan waxaa la arkay in dhaawacyo halis kusoo gaareen kabacdina lug ama labada lugoodba lagaa gooyey ama gacan iyo lugba lagaa gooyey ama yani meelo dhaawac halis soo gaareen oo yani shilkii ku baaba'ay ayaa lagaa gooyey si shilka inta kale loo badbaadiyo hadhow markaad waxaa soo indha kala qaaday gaari baa saarnay markii noloshu kugu dambeysay koomada markaa gashay kadib waxamaadan ogeyn waxaa soo indha kala qaaday adigiyo lixaadkaagii uu kala dhantaalan yahay dhibaato marka yani waxa weyaan murugada ka dhalatay inta badan dhakhaatiirtu way ka hortagaan xaqiiqatan laakiin way ogyihiin yani hadhow qofku isu bedeli karo laakiin waxaa dhacda in yani meelaha tusaale hadda aan sida aad waddan kale waddankeena soomaaliya oo kale wadamada afrika yani wadamo badan baa jira xataa yurub yani qofku laga yaabo in uu xaaladda kusoo baraarugo oo markaana uu qalbi jab iyo ka qaado niyad jab iyo wareer kale oo markaa xaalad kaloo dhimira ay saameyn ku yeelato siga loo qabo inuu caafimaad qabo haddana aanu caafimaad qabin
waxaa ka mid ah virus iyo sun, tusaale ahaan qofku inuu sumoobo ama infection uu jirkiisa galo, kadibna yani khaasatan intuu ilmuhu caloosha ku jiro o kale inay hooyadu sumowdo ama xanuuno ku dhacaan, xanuunadaasna ay u gudbaan ilmihii yaraa, ama hooyadu inay isticmaasho tusaale ahaan sigaarka oo kale, yani waxyaala toxic substance, yani sun inay isticmaalaan, sunta tubaakada o kale sigaarka ku jirta, kadibna ay ilmaha yar u gudbaan, kadibna ilmihii mataqaanaa yani maadaama uu abuurmayo hadda farsamo ku socoto iyo shaqo oo xubnihiisi hadda samaysmayaan, dheecaanadiisi kala duwanaa samaysmayaan, oo abuurkii lagu dhex jiro, in yani mataqaanaa ay ilmahaas ku dhasho xanuun, ama xanuun dhimir ha ku dhasho ama mid jismi ha ku dhasho ama labadaba. xataa hadduu marka hore u dhasho oo caafimaad qabo waxa laga yaabaa in dib inooga soo kaco, yani markuu 12 sano 14 sano meelaha marayo, in la arko inuu cunugii khalkhalsan yahay ama ilmahan yari uu isbedelay ama habdhaqano kale lagu arko. waana xanuun already yani waalidkii kusoo dhacay oo halkaa kasoo qaaday intuu uurka ku jiray, ama waalidkii ay usoo gudbiyeen oo ay maandooriyaal iyo waxyaala noocaas isticmaasheen, sida qaadka, sida khamriga, sida sigaarka, waxyaala noocaas oo kale. isticmaalka maandooriyaha qof markuu wen yahay oo kale, sida qaadka, khamriga iyo xashiishka ayaa iyaguna kamid ah waxyaalaha sababa cudurrada dhimirka. burooyinka maskaxda ku dhaca ama nerve systemka, yani qofka dareemadayaashiisa ayaa iyaguna sababi kara, waayo burooyinku inta badan ama shaqadii bay gaabis ka dhigaan, oo shaqadii caadi ahayd ee jirka ka socotay bay gaabis ka dhigaan, yani khaasatan yani regionka ama qeybta ay kasoo baxday buradu, ama shaqadii bay ku badisaa meesha, oo yani waxay samaynaysaa dheecaano ka badan intii aan loo baahnayn iyo farrimo kale, markaasuu qofku isku dhex yaacaya. haddaan isku dhex yaacna waxa laga yaba inu iska galo xaalad iska dee tusaale inuu iska hurdo fara badan, ama isku arko yani mataqaanaa hurdo la'aanba, aanu haba yaraatee wax hurdo ah aanay kasoo dhicin, ama hurdadii 10 saacadood hadduu seexanayo aanu jirkiisu ku nasanayn, aan dareemayn, yani iska saarnaan kara sariirta intuu doono. marka burooyinka maskaxdu waa ka mid waxyaalaha yani keena xanuunada dhimirka. faquuqa ayaa kamid ah isaguna, qofka hadduu saaxiiba aanu lahayn ama inuusan qof yani bulshaawiya ahayn, la kulanka saaxiibada iyo waxaas inta badan way ka hortagaan runtii xanuunada dhimirka. laakiin haddii adigoo saaxiib lahaansha xataa hadaa isfaquuqdo waa uga sahlantahay, waa uga nugushahay qofka markii hore aan saaxiibo badan lahayn in xanuunka dhimirka kugu dhaco. yani haddaa qof bulshaawiya tahay oo meel go'doona aa geshid ama xabsi lagu geliyo, waxa laga yaabaa haddii aadan aqoon iyo diin iyo caqiido iyo nidaam iyo maxaa la yirahdaa isha wax akhris iyo buug iyo waxa isku mashquulin, yani inay halis xanuunada dhimirka ka qaadid ayay u badan tahay. ama waa sabab ka mid ah sababaha keena cudurka dhimirka haddaan si kale u idhaahdo. astaamaha astaamuhu aad bay u fara badan yihiin, waxayna ku xirantahay inta badan xanuunka noocuu yahay, laakiin maadaama casharkani hordhac yahay, si guud waxaan oga hadlaynaa astaamaha ugu faraha badan ee qofku isku arko. waxaa kamid ah niyad jab iyo diiqad, iyo qofku inay farxaddu ka guurto. waxaa kamid ah fikir wareer, yani qofku inuu jahwareer fikri isaga jiro, aanu garanayn fikirkiisa dhiiban karayn, hadduu dhiibto aanu garanayn inuu sax yahay in kale, hadduu isagu garanayana yani ku dawaqsan yahay. waxaa kamid ah qofka firfircoonida inay ka lunto, wax qabad la'aan baahsan uu isagu dareemayo ugu yaraan, yani inuusan waxba qaban karayn, isagoo mararka qaarkood guulooyin xaqiijinaya hadduu doono inuu yirahdo war maya wax ma qabano, waa kana yani mataqaanaa waa laigu dadaalay, waqtigaa laigu bixiyay, laakiin waxa kama socon, wax natiija kama dhalano, qof jira maahi, oo qofkii yani mataqaanaa maanta oo dhan dhibaato isaga jiro, marxalad yani xasilooni darra ah, fikirkiisa uusan xakamayn karayn, yani cabsi fara badan baa kamid ah, ciil iyo mataqaanaa cuqdad, yani qofku inuu aaminsan yahay maya heblaaya saas hadday gabar tahay yani way i neceb tahay, ama way aniga ifka igu neceb tahay, nolosheeday kasoo horjeedaa, wanaageygay ka neceb tahay, yani maanta o dhan qofku inuu dareemayo in dadka kale ay neceb yihiin, mararka qaarkood inuu dareemo xataa waalidkii inuu ciyaalka qeyb kamid a jecel yahay, ama qeyb kamid a jeclayn, isaga in la neceb yahay. waxyaalaha noocaas oo dhan waa yani waxyaala sababa, waa astaamaha lagu garto waa astaamaha lagu garto astaamaha qofka qaba xanuunada dhimirka. waxaa kamid a cabsi, ciil, waxaan inaan sheegay, iyo is-aanayn, qofku inuu is-aanaynayo, oo mararka qaarkood qofku yani wuxuu leeyahay, yani wuxuu aaminsan yahay dhibaatada dhacayso o dhan inuu isagu mas-uul ka yahay,
yani wuxuu leeyahay waa kan tan dhacday yani waxbarashadii hadduu tusaale ahaan oo imtixaan ku dhaco waxaan isaga unbaa is eersanaya haddii mataqaanaa wax la doonayo qoysku inay helaan oo kale tusaale ahaan dhul in la gato oo kale ama maxaa la yidhahdaa ishimida waxbarasho in loo diro oo kale ama dukaan in la furo oo kale ama wuxuun yani nolosha qofka saameyn wanaagsan ku leh in la qabto wuxuun wax qabada waxaa laga yaabaa in qofkaasi uu yidhaahdo waxba mataqaanaa wixii suurageli waaya isaga ka mas-uula wax allaale wixii suurageli waayo wanaagsan wixii xumaada isaga ka mas-uula wax kastoo wanaagsan oo la doonaya in la sameeyo oo la samayn kari waayo qadartii rabbaaniga xataa yani wuxuu isleeyahay maya waa kano anaa ka mas-uula yani dhibaatadu anigay ila tahay aniga waxaan ka mas-uula waa astaamo kamid ah astaamaha dhimirka weyn cudurada dhimirka ku dhaca yani isbedbedel joogto ah oo shucuurta qofka ah yani qofku mataqaanaa inuu udhexeeyo yani farxad fara badan iyo murugo fara badan iyo qofki inaan la qiimeyn karin yani wuxuu jecel yahay wuxuu neceb yahay meeshuu u socdo yani wuxuu ku fakerayo suu jecel yahay wixii uu dhiibanaya laakiin haddana kuma dhaqmayo waa shucuurtiisu mar waa farxad zaa'id ah san hala sameeyo xagga laga dhaco waa kan xagga la qabta waxaasuu ku haya sida qof mirqaansan laakiin dee haddana wixii wax sii soconaya maaha hadhowna waxa u dheer yani mataqaanaa ciil iyo iscilikaanbi iyo wareer iyo waxaas dhan waa astaamaha lagu garto qofka la nool xanuun dhimirka xanuun dhimirka waxaan astaan uga sheekayna waxa weeyaan yani waxa jirka qofka biniaadamka ka arkaysid maaha laakiin habdhaqankiisa laga garan karaa qofkii yani dee wuxuun sawira ka haysto og haddaadan marka ogeynba xanuunada dhimirku de way adag tahay yani qofkii isagoo xataa kula nool ama adiga qudhaadii in aad garato yani inuu jiro xanuun dhimirka aamusnaanta iyo isfaquuqa kamid qofka haddaa aragtid tusaale ahaan inuu yani aad u aamusan yahay awalna aanu lahaan jirin bulshadii ka dhex baxayo ballamihii iyo maxaa la yidhaahdaa kulamadii saaxiibadii uu ka gaabsanayo waxaas o dhan yani waa astaan kamid a astaamaha daal fara badan miisaan xumo iyo cunno xumo ayaa iyaguna kamid ah daalka faraha badan yani qofku wax uu qabtana ma jirto wuuna daalan yahay miisaan xumada waxaan uga jeednaa yani miisaankiisi ama uu kordhaya maadaama qofku cunto fara badan cunayo aan wax activity lahayn waxba samaynayn nashaada wax uu qabanaya aanay jirin nashaadkiisu yar yahay haddii uu qabo xanuunada tusaale ahaan dhimirka qaybtooda cunno xumada waxaa laga yaaba cunto isku daldalo ama inaanu cunto isku daldalina uu cuntadii iska soomiyo labaduna waxay saameeyaan miisaankiisi qolana hoos u dhigaysaa kuwana waxay ku keenayaan in qofku miisaankiisu kordho marka miisaanka marna uu kordhaya marna hoos u dhacaya labadaba way noqon karaan cunno xumadana waxaan uga jeednaa cuntada qofku ama uu iska badinayaa ama uu isku yaraynaya wuu isa soominayaa ama marunbu wax cunaya ama hadduu doono intuu aad wax u cuno iska soo daadinaya haddana iskama tashanaya hurdo xumo ayaa kamid ah qofka hurdadiisi inay dee saacado fara badan oo aan jirku u baahnayn inuu iska seexdo ama inaan hurdadaba kasoo dhicin oo qofku yidhahdaa ma ladin hurdo igama soo dhicin isticmaalka maandooriyaha ayaa kamid ah qofku yani si uu u maareeyo marxaladan diiqada iyo culayskan caafimaadka dadku aanu yani aanay u qirsanayn inuu xanuunsan yahay ila qofkii jismi ahaan iyo jir ahaan wuu caafimaad qabaa laakiin qofkan wuu dhiban yahay wuu xanuunsan yahay sidaa awgeed qofku wuxuu isku dayaa marka maandooriye weliba qarsado inuu isticmaalo ama kiina ha ahaato ama khamri ha ahaato ama xashiisha ha ahaato ama ha ahaato maxaa la yidhahdaa qaadkoo kale waxyaalahaas marka qofku ama qarsanaya ama si caadiga u cunaya isagoo isku dayaya inuu bal yareeyo culaysyadan caafimaadka ka haysta waxaa kamid a iyaguna habdhaqanka qofku isbedbedela waxaa shalay ku ogeyd qofku siduu u dhaqmi jiray dabeecadihiisii isagoo dhan oo isbedela yani adigu aad dareemaysan dadkii la noolaa ay dareemayaan waxaa kamid a caro iyo welwel yani qofku inuu iska caraysan wax allaale wuxuu ka caraysan lama garanayo laakiin welwel iyo caro iyaduna fara badan oo wuxuu ka caraysan aan la garanayn wuxuu ka welwelay aan la garanayn ayuu qofku leeyahay waxyaalaha kale iyaguna waxaa jira oo qofku lasoo gudboonaada ama astaamaha lagu garta kamid ah yani dhibaatooyinka galmada waxaan uga jeednaa tusaale ahaan in qofku raganimadiisii hadduu nin yahay ama dumarnimadeedii hadday inan tahay gabar tahay inay ama zaa'id noqoto oo rabitaanka galmadu aad ugu farabato
ama uu aad u yaraado iska seexdo yani rabitaankii galmada ayaa suuxaya ama rabitaankii galmada ayaa zaa'idaya oo cirka isku shareeraya marka labadaas u dhexeeya mid ku doon noqon kara waxay ku xidhan tahay cudurka dhimirka ee markaa adiga ku haleelay waana ka hadlay waxaan waa hordhac weeyaan cuduradii o dhan isku jiray waxaan ka hadlayna hadda waxaa ka mid a afkaarta isdilidda oo qofka kusoo noqnoqoto maskaxdiisa yani qofku inuu ku fakero wallahi noloshan yani qof wuxuu dareemaya qiimo dhac yani qofku wuxuu dareemaya inaan wax qiimaa dunida inuu nool yahay aanay ulahayn inuu noolaado yani aysan wax macno lahayn sidaa awgeed inay ka qurux badnaan lahayd oo ka fiican ka wanaagsan tahay weliba inuu dhinto wayna sameeyaan dhalinyaradu inta badan yani si taban iyo si togan ba way isu dilaan yani si yani mataqaanaa aan la ogeyn cidla kala soconna way isu dilaan si farsamaysanna way isu dilaan oo farsamaysan waxaan uga jeeda yani si indirect yani si tusaale ahaan kiniini fara badan uu isticmaalo kabacdina markaa dhinto ama uu wax cabo ama sun oo kale galbeedka oo kale tusaale ahaan way isdeldelaan ama kiniin fara badan bay isticmaalaan ama way isa sumeeyaan waxyaala noocaas oo kale kiniin dhakhtarka usoo qoray loogu talagalay inuu bil isticmaalo waxaa laga yaabaa inuu saacad gudaheed wada isticmaalo marka wuu dhimanaya dee qofka wuu sumoobaya way jiraan kuwa la badbaadiyo way jiraan kuwa laga gaari waayo marka say doontaba ha ahaato waa cudurro insaanku u siman yahay bini aadamku muslim iyo gaalba hadday haleelaanna ay halisteeda leh weeyaan waa maxay haddaba daweynta cudurradan xaqiiqatan maadaama cudurro fara badan yihiin cashirkuna hordhac yahay dawadu waxay ku xidhan tahay in la xaqiijiyo cudurka yani cudurka ku haya ku xidhan tahay in la daweeyo waxaana la kala maraa habraacyo kala duwan yani cudurrada marka la daweynayo habraacyo kala duwan ayaa la maraa waxay ku xidhan tahay hadda cudurka lagaa helay iyo sida loo maareynayo marka waxaa muhiim ah yani qofku hadduu astaamahan qaybo kamid isku arko ama qofu og yahay isku arko muddo 2 week ka badanna ay ku hayaan inuu qofku dhakhtar la kulmo khaasatan hadday jiraan dee dhakhaatiirta dhimirka oo kale inuu qofku la kulmo waa muhiim yani waayo markastoo cudurka horey loo ogaado yani in yani lagala tacaalo ama la xakameeyo ayaa aad u fudud ama lagaa daweeyaba isla marka lagaa dabiibo oo aad ka boodo haddii dhakhtarku dawo kuu qoro waxaa lagaba maarmaan oo aad muhiim oo ah in qofku uu dawada u isticmaalo si dhakhtarka ugu talagalay waxaa iyaduna lagama maarmaan ah in aad muhiim ugu ah qofka caafimaadkiisa in dawada loo qoray aanu joojin ogaansho la'aan dhakhtarku aan ogeyn yani haddii dawada aad joojisid ama yani iskaa u joojisid dhakhtarkaan kula socon ama been ka sheegtid intaa isticmaalaysid iyo waxaa inkastoo dhakhaatiirtu dhigag intay kaa qaadan ay arki karaan dawadii sidaa u isticmaalaysay laakiin haddana waxaa muhiim ah inaad adigu naftaada khiyaamayn oo dawadii ama si khaldan aadan u isticmaalin ama been ka sheegin sidaa u isticmaalaysay tusaale ahaan haddaad joojisay oo kale ama inaad joojisidba halis badan bay leedahay waayo waxaa laga yaabaa cudurkii isla markiiba kugu soo laba kacleeyo adigoo aan ama dhakhtar la joogin ama hataa doonta dhakhtar leh laakiin dhakhtarkii markaa dee ay dawadii uu ku siiyey isla markiiba uu ku aamini kari waayo hadhow markuu arko inaadan dawadii isticmaalin ama sidii la doonaya aadan u isticmaalin in markaa lagu yirahdo maya isbitaalka lagu seexinaya marka waayo dee awal waxaa lagugu aaminay dawadana sidaa u isticmaashid caafimaadkaaga waxaanay ahayd laakiin si khaldan ba hadda been baa ka sheegaysaa dawadii marka waa muhiim yani xanuunadan inta badan way soo noqnoqdaan haddaan yani dhakhtarka si dhab ah loola socon marka dawa lagu qoraya tusaalahaan kuuraa lagu qoraya dawadii markay kuu dhamaato isla marka dhakhtarka u tegaysaa waxaa laga yaabaa in mid kale kuu qoro ama in iyadii midda kale lagu qoray waxaa inta badan la doonayaa in yani tii hore haddii ay intaa ku ekayd dawadu in aanay intaa dawadu kasii badan laakiin iyadii sidii lagaga yani maskaxdaadu inay ka maaranto iyadii in taladeeda la raaco oo la sameeyo tusaale ahaan in dawadii la yaryareeyo si farsamaysan haddii kale waxaa jira waxa la dhaho withdrawal syndrome ama symptoms oo macnaheedu yahay withdrawal symptoms waxa weeyaan in yani inay kugu soo laba kacday yani astaamiyo ka xanuun badan kun jeer intii horey ogeyd marka xanuunka koowaad ayaa kugu soo noqonaya haddii dhakhtarka iyo adigu ayna wada shaqayn dhab ah lahayn ama cidda ka mas-uulka ada marka xanuunadu aad bay u sahlan in la daweeyo laakiin waa haddii ay jirto daacadnimo ka dhaxaysa bukaanka iyo
iyo bahda caafimaadka. Intaa waxaa ku dhan casharkii maanta aan uga hadlayay cudurrada dhimirka hordhaca ahaa. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Runtii waxaan aad u jecelnahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba inaad la wadaagtaan bal afkaartiina waxaan ka bedeli lahayn sida idinla muuqato casharadana inay wuxuun faa'iida idin leeyihiin iyo in kale. Waad mahadsantihiin mar labaad. Waa Somali Med iyo sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.